kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa All Banaadir Online 21 bisha 10 sanada 2020 ku soo dhawaada wararka 24 saac ee All Banaadir Online qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah wasiiradii xilalkooda waayo oo si lama filaan ah uga falceliyay magacaabista uu magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub golihiisa wasiirada magacaabista General Mukhtar oo la sheegay in halis weyn ku tahay qorshaha dawladda Soomaaliya ee ku aadan doorashada dawlad goboleedka Hirshabelle xilli ay soo baxayaan qodobo dhowr ah oo wajihi kara General Mukhtar guddi ka dhisan gobolka Banaadir oo la sheegay in ku milmeen al-shabaab iyadoona dawladda Soomaaliya ay shaaca ka qaaday digniino loo jeedinay dadka la shaqeeya al-shabaab akhbaraadka caalamka aad ku daawan doontaan warkeenana waxa kamid ah dacwad ka dhana Maxamed bin Salman oo laga furay maxkamad ku taala dalka Mareykanka daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararka 24 saac ee All Banaadir Online imikayaatan u diyaar garooba daawashada iyagii oo inta ka faahfaahsan mid kamid ah wasiirada xilalkooda waaye ayaa si lama filaan ah uga falceliyay magacaabistii uu magacaabay wasiirada cusub ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka magacaabista xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku dhawaaqay taariikhdu markay ahayd 20 bisha 10 sanada 2020 ayaa waxa ka falceliyay mid kamid ah wasiiradii hore ee aanan ka soo dhex muuqan xukuumadda cusub kaas oo si hufan u bogaadiyay golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha injineer Cabdullaahi Cali Xasan ayaa soo dhaweeyay xukuumadda cusub isagoona hambalyo bogaadin iyo ducaba u diray guud ahaanba golaha wasiirada cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya kaas oo ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble xilku waa meerto waana sunnaha dawladnimo ee kolba qofkii loo garto nasiibna u yeesho loo magacaabo shalayto aniga ayaa hayay maantan muwaadin kale oo Soomaaliyeed baa haya muhiimaddu waa in wadankeenu uu hore u socdo waana in aan dib u dhiska wadankeena iyo sidoo kale horumarkiisa aan ka wada qayb qaadano qofba waxa uu ku kordhin karo sidaas ayuu yiri wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha injineer Cabdullaahi Cali Xasan wuxuu u rajeeyay mas'uuliyiinta cusub ee xilalkan loo magacaabay gaar ahaan wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya in uu ku asturo xilka loo igmaday isagoona u rajeeyay in dadaaladii socday ee horumarka ahaa ay halkooda ka sii socdaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee xilalka ka soo qabtay dawladihii kala duwanaa ee dalka soo maray loogama baran in ay u tahniyadeeyaan fariin noocan oo kalena ay u diraan xubnaha xilalka kala wareegay iyadoona talaabadan wasiir Cabdullaahi lagu amaanay markii uu soo dhigay bartiisa bulshada Cabdullaahi Cali Xasan wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ma uusan ka soo dhex muuqan fursadna ma uusan u helin golaha wasiirada cusub ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaana markii ay soo baxday in la magacaabay golaha wasiirada siyaabo kala duwan kaga hadlay dadyo kala duwan oo siyaasiyiin Soomaaliyeed ay u badan yihiin waxaana kolkii hore rajeynayay inay u badnaan doonaan ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Soomaaliya wasiiradiisii waxaana inta badan hadda ay yihiin ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya wasiiradii la shaqeynayay balse wasiiradan sidaas u badneen ayaa xilligan lagu soo kordhiyay booskana lagu soo daray inkastoo kuwii hore ay yihiin kuwa la arkay waxqabadkooda kaliya hadda waxay dadku rajo wanaagsan ka muujinayaan kuwa cusub ee lagu soo daray boosaskan magacaabista General Mukhtar ayaa la sheegay in halis ku tahay dawladda federaalka Soomaaliya qorshaheedii ku aadanaa doorashada dawlad goboleedka Hirshabelle waxay weli dood badani ka taagan tahay dhismaha dawlad goboleedka Hirshabelle waxaana doodda ugu badan qaba beesha Xawaadle oo doonaysa in kursigan ay kaligeed ku ahaato inkastoo beele kale ay jiraan oo xilligan iyaguna qaba in kursigaas ay ku tartami karaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in ay si weyn ugu milantay doorashada Hirshabelle isla markaana musharax ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe ama beesha Abgaal ay la doonayso in uu noqdo madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle muddada soo socoto golaha cusub ee wasiirada Soomaaliya ayaa lagu dhawaaqay waxaana ku jira General Mukhtar Xuseen Afrax oo ah wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya waxa uu sidoo kale ka soo jeedaa beesha Xawaadle oo kursigan sida weyn xilligan ugu hanweyn inkastoo maalmihii ugu dambeeyay ay jireen cadaadisyo kala duwan oo beeshaas ay kula kulmaysay rag uu ku jiro madaxweynaha dawladda Soomaaliya wasiir Mukhtar waa qofka qaadan doono doorka ugu weyn ee dhismaha dawlad goboleedka Hirshabelle waxayna magacaabistiisa ku soo aaday xilli tabashooyin badan ay qabaan beeshiisa dad badan ayaa isweydiinaya General Mukhtar caqabad ma ku noqon karaa qorshaha Cali Guudlaawe dadka yaqaan General Mukhtar Xuseen Afrax ayaa waxa ay sheegeen in uu yahay nin degan oo aan dood badnayn isla markaana aad ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya waxaana la filayaa in uu sidoo kale dhaqaajiyo qorshaha dawladda Soomaaliya ee maamulka Hirshabelle warar hoose oo soo baxay ayaa sheegaya in General Mukhtar magacaabistiisu ay ka dambeysay isqa qabsiga weyn ee dawlad goboleedka Hirshabelle dawladda Soomaaliya oo dhankaas ka fiirinaysa ayaana General Mukhtar garowsatay in loo magacaabo dawladda Soomaaliya oo muddooyinkii dambe si weyn ugu jahwareersaneed doorashada Hirshabelle ayaa General Mukhtar u magacaawday wasiirka arrimaha gudaha danta ugu weyn ee madaxweynaha dawladda Soomaaliya ayaan ahayd in General Mukhtar uu kala furfuro dawlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan beesha Xawaadle odayaashooda dhaqanka iyo siyaasiyiintooda kuwaas oo xilligan soo taagan
cid aan iyaga ahayn inaysan u tartami karin booska madaxweynaha waxaana shakhsiga madaxweynuhu uu wato uu yahay Cali Guudlaawe kaas uu si weyn hadda ugu cadcad doorashada dowlad goboleedka Hirshabelle balse murankan ayaa noqday mid hareeyay sidoo kalena hore u dhaqaajin waayay arrimaha doorashooyinka Hirshabelle dib u dhac badan oo jira ayaana hadda waxaa taagan in Generaal Mukhtaar laga dhigay wasiirka arrimaha gudaha wax kalena ma ahan waana in arrintaas uu meel wanaagsan uga soo haro dowladda Soomaaliyana uu ku qanciyo in Cali Guudlaawe ay ka dhigto madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle muddada soo socoto beesha Xawaadle ayaana sidoo kaleeto iyagu sheegay in haddii laga dhig waayo madaxweyne ay ka go'i doonaan Hirshabelle inteeda kale guddi ka dhisan gobolka Banaadir ayaa la sheegay in ay ku milmeen al-shabaab maamulka gobolka Banaadir ayaa dhawaan waxa uu wareegto ku kala diray guddiga iskaashatooyinka gobolka kadib markii lagu eedeeyay in ay ku milmeen al-shabaab sida lagu sheegay wareegtada soo baxday maamulka gobolka Banaadir oo wareegtadan soo saaray maalnimadii Isniinta ahaa ayaa dhammaan laamaha kala duwan ee ammaanka ku wargeliyay kala dirista xubnaha lagu eedeeyay in ay gacan saar la leeyihiin al-shabaab sidoo kale waxaa wareegtadan digniin 6 qodob ah loogu diray qof kasta oo si un u gacan siiya ama u taageera al-shabaab iyadoona laamaha amnigu ay si isku mid ah ula dagaalami doonaan qofkaas iyo sidoo kale al-shabaab waxaana qodobadaas 6 ah ay kala yihiin qofkii al-shabaab ku taageero dhaqaale qofkii ka kireeya guri ama u kireeya qofkii ka iibiya gaari ama u ogolaada garaaskiisa qofkii la wadaago xog ama xiriir dhow kala sameeya gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka qofkii dhiirigeliya al-shabaab ama fidiya dacayad ay u baahan yihiin iyo sidoo kale qodobka ugu dambeeya oo ah qofkii ku dhiirigeliya dhalinyarada in ay ku biiraan al-shabaab afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere ayaa warbaahinta u akhriyay wareegtadan wuxuuna sheegay in dhawaan maamulka gobolka Banaadir ay soo magacaabi doonaan guddi cusub oo iskaashatooyinka gaadiidleyda gobolka Banaadir ah taas oo hay'adaha ammaanku ay si joogto ah baaritaan ugu sameyn doonaan dowladda Soomaaliya ayaa dhawaantan sheegtay in laamaha amniga dowladda Soomaaliya ay si cad u kala direen guddiga iskaashatooyinka gaadiidleyda gobolka Banaadir waxaana lagu eedeeyay in dhaqaale badan ay ku taageeraan al-shabaab inkastoo maamulka gobolka Banaadir sidaan oo kale dhowr mar uu sheegay in digniinaha ay soo saaraan maamulkooda cidii qaadan weysa tallaabo cad laga qaadi doono waxaana gebi ahaan tallaabooyinkaas ay ahaayeen kuwa aan dhaqan galin dad badan ayaan isweydiin doono wixii hore oo amraa oo aan shaqaynin sidee ayuu ku shaqayn doonaa amarka cusub ee maamulka gobolka Banaadir xilligan ka soo baxay waase loo joogaa halka uu mara amarkan sidii kuwii hore inuu noqon doono ama inuu ka bedelnaan doono daawadayaal weli waxaad daawanaysaan oo aad la socotaan wararka 24 saac ee All Banaadir Online imikii haatanna u diyaar garooba daawashada akhbaraadka caalamka dacwad ka dhan ah Maxamed bin Salmaan ayaa laga furay maxkamad ku taala waddanka Mareykanka gabadhii u calmaneed suxufigii reer Sacuudi ee la dilay ee Jamaal Khashoggi iyo koox u dooda xuquuqda aadanaha ee uu aasaasay ayaa maxkamad ku taala Mareykanka ka diiwaan geliyay dacwad ka dhan ah dhaxal sugaha waddanka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo lagu eedeeyay dilkaas in uu ku lug lahaa isaguna uu ka dambeeyay maxkamadan oo ah mid madani ah ayaa waxa ay Maxamed bin Salmaan ka doonaysaa magdhow lacageed oo aan la shaacin waxaana sidoo kaleeto ka qayb ah 20 eedeysano oo Sacuudiyaan ah iyaguna dacwadan ayaa ku soo aadaysa xilli xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga uu sii xumaanayay dilkii wariyaha oo dhacay 2018 xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee lagu eedeynayo Riyaad iyo sidoo kale ku lug lahaanshiyaha dagaalada Yemen safaaradda Sacuudiga ee Washington kama jawaabin codsiga la xiriira in ay ka hadasho dacwadan Maxamed bin Salmaan ayaa horey u beeniyay in uu wax lug ah ku leeyahay dilka Jamaal Khashoggi oo haystay sharciga waddanka Mareykanka iyo deganaanshiyihiisa Jamaal Khashoggi oo aad u dhaliili jiray boqortooyada Sacuudiga isla markaana wax ku qori jiray wargeyska Washington Post ayaa bishii October 2018 lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul waxaana halkaas uu u tagay inuu ka soo goosto waraaqado oo u baahnaa si uu u guursado gabadha ay sacalmadeen taas oo ahayd muwaadinad Turki ah tan iyo markii uu soo baxay dilkaas ayaa boqortooyada waddanka Sacuudiga lagu eedeynayay inay geystaan xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha waxaana dowladda Mareykanka eedeymo joogto ah ee u jeedinaysay dowladda Sacuudiga xiriirkii u dhaxeeyay Washington iyo Riyaad ayaana aad u sii xumaanayay waqtigaas wixii ka dambeeyay dowlado badan oo Turkigu uu ku jira ayaana sheegay in baaritaano dheeraad ah lagu sameyn doono dadkii ka dambeeyay dilkaas dhowr jeer ayaana maxkamad ku taala Turkigu waxay dil ku xukuntay dad la sheegay inay ku lug lahaayeen dilka Jamaal Khashoggi inkastoo ay ka maqnaayeen maxkamadii guud ahaanba Turkigu iyagoona ay jireen waddanka Sacuudiga oo ay u baxsadeen markii dilka ay sameeyeen ka hor inta aan la ogaanin Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa ahaa saaxiibo dhow waxaana dowladda Mareykanka saaxiibkeeda koowaad u ahayd dowladda waddanka Sacuudiga ayaana hubka ugu badan ka soo iibsan jiray dalka Mareykanka balse waqtiyadii dambe ayaa xiriirkooda waxa uu ahaa mid hoos u sii dhacaya eedda ugu weyn ee loo haysto dowladda Sacuudiga ayaana ahaa ku lug lahaanshiyaha dilka wariyaha ayaana ahaa mid u ololeyn jiray xuquuqda aadanaha sidoo kalena aad u dhaliili jiray dowladda waddanka Sacuudiga
inkastoo dowladda Sacuudiga si cad aysan kaga hadlin ayaa haddana waxaa jira dowladda Mareykanka inay dusha u saartay dhaxal sugaha waddanka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan kaasoo sheegtay inuu ku lug lahaa kana dambeeyay dilkaas. daawadayaal intaasi waxaa ku dhan wararka 24 saac oo aad ka daawanayseen All Banaadir Online. waad ku mahadsantihiin daawashada wararkeena iyo warbixinadeena.